Salaamullaahi calaykum. Mararka qaar nolosha waxay inoogu muuqataa mid culus. Habeen iyo maalinna waxay kuu sheegaysaa inaad joojiso oo haddana aad isdhiibto. Laakiin maanta waxaan ku barayaa sir qarsoon oo Qur'aanka ina farayo. Sirtaasoo ay gacanta ku hayaan dadka guuleysta, taasoo ay leedahay nolol kastoo iftiinka nolosha gaarta. Waxaa laga yaabaa inaad wax ku dhacday imtixaan ama interview, laga yaabaa inaad niyad jabtay ama aad daashay, laakiin hal shay ayaan ku leeyahay ha istaagin ee u dadaal. Maxaa yeelay Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina leeyahay wa an laysa lil insaani ilaa maa saca, taasoo micnaheedu yahay aadanaha ma lahan wax aan ahayn wuxuu u dadaalay mooyaane. Waana tan sirta nolosha. Haddaba kusoo dhowow taxanihayga maanta, waxaan ka hadli doonaa muhiimadda dadaalka, sababta aan u liidano iyo siduu Qur'aanka inagu baraarujinayo. Haddii aad rabto inaad fahanto ama haddii aad rabto inuu qalbigaagu soo noolaado, halkani fariiso, waxaad ku jirtaa meeshii saxda ahayd. Qof kastoo inaga mid ah wuxuu ku nool yahay nolol u gaar ah. Qof walba wuxuu wadnaha ku wadaa sheeko aysan dadka kale ogeyn. Mararka qaar waxaad dareemaysaa sidii in adiga dunidu kaa hormartay iyo sida inaadan wax gaari doonin. Noloshu micnaheeda ma ahan oo keliya inaad wax barato ama aad shaqaysato. Waa inaad ku dadaashaa salaadaha shanta ah oo Ilaahayna faray. Waa inaad yeelato hadaf, inaad naftaada horumariso, in aad ka faa'iidaysato waqtigaaga, inaad ku dadaasho wanaagga, iyo in aad ka tagtaa raad wanaagsan. Noloshu ma sugto qof fadhiya, waana sidii webiga oo kale, haddii aadan ka faa'iidaysanin way kaa idlaataa. U fiirso, wax walba qurux badan waxay ka timaadaa marka la helo samir, u dhaganuglaasho, diyaar garow, tijaabo iyo halgan. Dadkii guuleystay waa kuwa ku celceliya dadaalka markii ay dhaceen marar badan. Waxaadna ogaataa inuusan jirin qof hal mar keliya guuleystay, laakiin waxaad arkaysaa qof kumanaan jeer dhacay kadibna ka kacay. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala Qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay walladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana, oo micnaheedu yahay kuwa annaga nagu dadaalo jidkayga baan ku hanuunin doonaa. Ma jirto qof dadaalka kaa celinaysa marka Ilaahay kugu hiiliyo. Haddaba sidee loo noqdaa qof dadaal badan? Ugu horeyn, hadaf cad yeelo, dad wanaagsan la joog, waqtigaagana maamul, Ilaahayna ku xirnaaw. Yacni haddii aad dadaasho, aad duceysato, waajib waad guuleysanaysaa. Laakiin haddii ay arrin kugu adkaato, ha niyad jabin. Ilaahay wuxuu yiri inna macal cusri yusra. Haddaba maxaa dhacaya haddii aan dadaalo? Waxaad helaysaa aqoon kugu filan, waxaad kasbanaysaa dad wanaagsan, waxaad yeelanaysaa sumcad bulshada dhexdeeda, waxaad gaaraysaa meel fog, waxaad noqonaysaa qof la xuso, waxaadna noqonaysaa qof naftiisa ku kalsoon. Markaad dadaasho, xitaa haddii aadan helin wax kugu filan, waxaad noqonaysaa qof wanaagsan. Balse u dadaal nolol, sababtoo ah noloshu ay kooban tahay, fursadahana waa ay yar yihiin, waqtiguna waa uu baxsadaa, xasuusta guudna waa dadaalkaaga. Marka ku bilow maanta, ku bilow waxyar, kuna bilow adiga iyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala.